weligaa ma isweydiisay maxaa noolaa bini'aadamka ka hor mana ku fikirtay inaad wax ka ogaatid haddaba maanta waxaynu dib ugu laabanaynaa malaayiin sano ka hor maahan wakhti yar muuqaalkan waxaynu uga hadlaynaa abeesada Titanic bow haddaba aynu guda galno muuqaalkeena sida la soo warinayo muddo laga joogo 36 milyan oo sano ka hor waxaa la sheegaa in kaymaha Amazon ay ku nooleed abeesadii ugu weyneed ee soo marta dhulka taasoo dhererkeedu ahaa 14 mitir halka ballaceedu ahaa 3 mitir culeyskeeduna uu dhamaa 1 tan si aan wax badan uga ogaano xayawaankan aan dib u fiirino baaritaanka ay culimadu ku ogaatay raadka xayawaankan waxa baaritaan lagu ogaaday sanadkii 2002 markii arday u dhashay dalka Colombia uu booqasho ku tagay godadka dhuxusha laga qodo ee ku yaala Serchen ee dalka Colombia halkaas oo uu ku arkay waxyaabo muujinaya taariikh hore haddaba waxaan isweydiin karnaa sidee buu u noolaa xayawaankan waxaa la rumaysan yahay in cimilada diiran ay sabab u ahayd koritaanka jirka xayawaankan maadaama abeesooyinka iyo masaska dheefshiidkooda u baahan yahay heerkul diiran si hormoonada burburiya cunnada ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan sidoo kalena heerkulka diiran wuxuu ka sahlayaa xayawaankan in wareegga dhiiggiisu uu shaqeeyo maadaama xayawaankan dhiiggiisu uu ahaa mid qabow inta badanna uu ku jiri jiray biyaha hoostooda halkaas oo ugaarsigiisa ka samayn jiray waxaa filayaa in dadka badankiisa ay garanayeen anaconda iyo cobra sidoo kalena Titan bow inaad wax badan ka ogaateen waa muuqaalkan muuqaalka inoo xiga insha Allah